بسم الله الرحمن الرحيم sida aad ka warqabtaan waxaan markaas si joogto ah idin la wadaagnaa xaaladda amni ee gobolka Banaadir walaalayaal sida aad ka warqabtaan saacadihii ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayay oo ay aad u buunbuuninayeen kuwii niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka waxaanu cadeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba la hekaatee laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiigooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ugu aqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokeeye laga abaabulo magaalada Muqdisho tol beelay iyo colaad waa mid halkan 10 sano wadankeena dib u dhigtay sidaas daraadeed waxaan ugu aqli celinaynaa walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadayn waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta waa dhaqan lagu yaqaano al-shabaab iyo argagixisada in ilmaha la fogeysto ilmo Soomaaliyeed ee kalena lagu guwaabiyo inay colaad galaan laamaha amniga ee dalka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay goor iyo ayaan ugu taagan yihiin in ay hubiyaan in dadka ku nool gobolka Banaadir ay nabad ku seexdaan kuna soo kacaan xilliga hadda aan idin hadlayno oo ah 5 daqiiqo dhiman 5 saqda dhexe oo 5 daqiiqo dhiman waxay laamaha amnigu u taagan yihiin sidii midkii uu seexdana uu nabad ugu soo kicin lahaa kan suxuranayna uu nabad ugu seexan lahaa waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanay ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed ee dalka jooga iyo inta dibadda ku maqan intaba in qayb laga noqdo sidii amniga aan uga wada shaqeyn lahayn sababtoo amnigu waa mid faa'iido u ah cid kasta inagoo hadda ku jirna bishii cibaadada ee Ramadaanka ugu dambeyn walaalayaal sida aad ka warqabtaanba dalkan gaar ahaan magaaladan hadda aan joogno ee Muqdisho gobolka Banaadir waxay muddo 30 sano ah ku soo jirtay colaad faragelin shisheeye faqri iyo cudurro inta oo dhan waxay noo soo dhex marayeen amni darro taasoo mararka qaarkood ama inteeda badanba nooga imaanaysay faragelin shisheeye waxaan annaga uga mahad celinaynaa wada shaqaynta dadka Soomaaliyeed waxaan halkan ka waaninaynaa cid kasta oo isku dayda ku fakaraysa la soo dhaxmaro dana siyaasadeed ka aragta inay amniga gobolka Banaadir calaqaldayso arintaas waa ka waaninaynaa waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa way aragnimo loogu filan 30 sano aan soo marnay waxaan in ka waaninaynaa inaad arintaas ka waantoodaan ciddii ka waantoobi weysa oo aqli celinta dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dheergaradka Soomaaliyeed u dhagraaricin weysa waxay wajihi doontaa sharciga dhammaanteen ayay dan ugu jirtaa inaan wada ilaashano wardiye ka noqono nidaamka dawladnimada waxaan looga baahan yahay inaan nidaamkaas dawladnimada ilaashano isku ilaalino ku far adagno waa mahadsantiin